doodaan ku xirmay sidaasoo ha xasuuqin wariyaha xog dhamaysan iyo xaaladaha dunida xaqiiqdoodabu soo tabinayaa ku xurmeeya shaqado ha xasuuqin wariyaha wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa darsoon inaad hesho waa xilkiisa xabsi kaama mudno xaq bay kugu leedaho xor weeye saxaafaduye ha xasuuqin wariyaha xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodabka ah xaq dhowr bayna farayaan kadaa xasuuqa soifida oo kadaa xasuuqa soifida wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa darsoon inaad hesho waa xilkiisa xabsi kaama mudno xaq bay kugu leedaho xor weeye saxaafaduye ha xasuuqin wariyaha xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodabka ah xaq dhowr bayna farayaan kadaa xasuuqa soifida
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو هذا ولا ليال دمانتين ومركلة يوم نمو إن شاء الله. سودو هذا حوقات كهنو صوبتان توبك عاو حن كهل دورنا كرة وجدان ولكن أقول إن شاء الله أنت كلتنا وحيابك لا كهل دورنا. سودو ما هذا ولا لا سودو هذا دمانتين شهرسات سودو أباي معان هذا كل سلام عليا سودو دمانتي سودو هذا لوزي واكو سلام على لكي جبريل نور الدين قباد أصور على قباد نولو سودو دمانتي وان سلام على دمانتي ولا ليال سودو هذا سهر الشاد أدبكو سلامي وكاق هذا باي معان هذا يا هذا وما سنتهي هاي لابنا بليس هاي لابنا الشركة waxaan ka hadli doono caawa barnaamijka ayay maxay tahay kor kaga qoran tahay walaalkeen cildoona ugu horeeyo insha Allah ilmaheena yarka Soomaaliya lagu xadaayaan ka hadli doonaa waxaan kaloo ka hadli doonaa ummadda Soomaaliyeed iyo midnimadeeda hadii Ilaahay raaho insha Allah bismillaah kariim. aad baan idin soo dhaweynaya dhamaantiin aad baan idin soo dhaweynaya dhamaantiin. salaan sare maxamed الجبادة مايا شقان هذا كصوب حتى تلفون ما ديارنا بايو إن شاء الله ويكند مرة أنا يعني تلفون كديارنا يا تلفون ما ديارنا توني Thank you Gubada Boy, thank you so much. حبيبنا وأوجيدا thank you حبيب أبو. حالنا وأوجيدا حبيب أو قرع مايو فرقو حورتي. يا. إن أدبا إدين سلام يا ولاليال دمانتين أدبا إدين سلام يا ومني ما أمر كلا إذن له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالى دمانتين ملك استو أدون كده على ده أتكجد سنتين عمل إنك وجبوا فيه إن
wax badan ayaan ka hadli doonaa insha allah bilmillahi kariim. waxa igu horeeyo oo aan go'aansaday inaan ka hadla caawa oo schedule-kayga ugu horeeyo waxa weeyaan walaalkeen Coldoon inta uu xiran yahay waa hadleynaa, inta tabarteen waa taraagreynaa, waxaana ka codsanaynaa ma taqaanaa ficilo badan baan samayn lahayn haddii uu xiran yahay dadadow ama wadan shisheeye, laakiin alxamdulillah hadda meeshu ku xiran yahay waa wadankeeni. waxaan ka codsanaynaa walaaliheen mar kasta iyo mar boqolaadba walaalkeen Cabdimaalig oo ah nin aan ahayn nin xarig loo quuro, ka qaalisan ummado badan, ka qaalisan ummadda Soomaaliyeed, nin ku maxay tahay ku shicibka Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeed nin qiimo ku leh ah. waxaan ka codsanaynaa walaalkeen inuu soo daayo, la soo daayo oo dhammaan walaalaheena reer maxay tahay waqooyi Somaliland waxaan ka codsanaynaa inay soo daayeen walaalkeen. waxa aan maxay tahay uga hadlayno oo u codsanayno ma ahan ina annaga aan ujeedo kale ka leenahay, waa mid waajib qof kasta ku ah oo annagana nagu ah. qof kasta oo la xirto meeshuu raba ha ka yimaado, stateku raba ha ku dhasho, qofku doona ha ahaado, hadduu Soomaali yahay waan u dagaalamaynaa, waa u dadaalaynaa, waa taraagreynaa. maxay heetay dad badan baa isla Jamiilo maxay heetay weligeed life ma soo fadhiisaninoo waxaan kamay hadlinine Cabdimaalig waa ay all the time Cabdimaalig waa hadashaa. dad badan baan idaawan jirin, laakiin marka uu xirnaa ninka la yiraahdo walaalkeen Gamaadiid abwaankii weynaa habeen iyo maalin saasaan u hadli jiray, balse waxay ku kala duwan tahay life soomaan geli jirin everyday, laakiin waxbaan qori jiray everyday, waxbaan share garan jiray everyday. Soomaali maxay tahay Puntland wararka ka soo baxaan la socday, shicibka Puntland ayaga un baaban ka ogaano, ayaga kacay, ayaga ayaa ka soo horjeestay in la xiro abwaan Soomaaliyeed. marka waan ku faraxsanahay because meel kasta waxa fiican shicibku inay qofkooda qiimaha leh ay ilaaliyaan oo ay aad sharaftiisa u ilaaliyaan si aan loogu xadgudbin, because qofka qiimaha leh bulshada Soomaaliyeed oo dhan wuxuu ku leeyahay sharaf. abwaanka, fanaanka, maxay heetay wariyaha xuduud ma xirto, dhakhtarka xuduud ma xirto, afarta koona adduunka waa tegi karaan, adduunka kaleba u tegi karaan oo aan dadkoodii ahayn oo diintooda qaarkood haysanin. iska badaa dadkoodii ayaga ilaahay maxay tahay ka dhaliyay oo ahaa isku maxay tahay walaalka ay ahaayeen, isku sinjiga ay ahaayeen. marka walaalayaalow aad baan kuu salaamayaa my sister, aad soo dhawow Muxib Cadeey, dhammaantiin waan salaamayaa walaalahay. Irshaad aad baan kuu salaamayaa, soo dhawow dhammaantiin waan salaamayaa. sheerka ha ilaabinina walaalayaal macaaniyaal, aad baan idin salaamayaa dhammaantiin. laakiin message-keena si uu u gudbo oo maxay tahay dadka kalena noola dhageystaan waxa aan ka hadlayno, waxaan ka codsanayaa inaan ilaabin sheerka because sidaan wax ku gudbin karno, message ku gudbin karno. marka waxaan leeyahay qofka wariya ah iyo qofka maxay tahay dhakhtarka ah iyo qofka maxay tahay fanaanka ah, xuduudyada xataa adduunyada kale ayaanba la kala xirinin. oo maanta wiilka halkan ka heesta ama gabadha halkan ka heesta Afrika meel kasta ay ka tegi kartaa, ama waxayba tegi kartaa haddii wadankeena Soomaaliya invitation looga sameeyo. marka waxaan oran lahaa abwaanada, dhakhaatiirta, fanaaniinta waxa weeyaan ayagu waa dawlad madax bannaan, inkastoo dalkooda ayna ku xadgudbi karin oo dalkooda intay dal shisheeye u baxaan ayna wax xumaan uga samayn karinin, oo minas ay dhaqanka tahay inay xushmada wadankoodana ilaaliyaan, because wiilka Mareykanka halkan joogo intuu wadan kala tago wadankiisa xoogaa ma ku xadgudbi karo. taas waxa weeyaan waa dadka wadanka shisheeye markaan ka hadlayno. annaga laakiin Soomaaliyaan nahay, Djibouti wiilka jooga 100 jeer noo iman kara, Djibouti wiilka jooga fanaanka waa soo iman kara, kan wariyaha waa noo iman kara. Soomaali waay, markasta Soomaaliya ay Soomaaliyaan nahay, Soomaalina ma kala tagayaan, meelna ma kala gaarayaan. maanta haddii maxay tahay anoo dhahayo Jubbaland ah laba dharbaax la ugu dhufto, qofka ugu horeeyo ii soo gurmada dadkayga waa dhiigayga waay. qof Soomaali ana yeeli maayo anoo Jubbaland in laba dharbaax la ilaqsiyo, nobody yeelay oo qoladodow ilaqsiiso qof yeelay ma jiro. haddii anybody islaam gareeyo dadkaygu waa ready to maxay tahay fight for me. marka waxaan leeyahay Soomaaliyey walaalayaal meel ma kala tagayno, ma nihin inagu cadow iskuma nihin, ummado kale ayaa cadow noo ah, ummado kale ayaa maxay tahay wadankeena iyo wanaagiisa ka soo horjeeda. marka ummadda aan il isaga eegno, inagu yaana il isku eegin. anigana halkan inta uu xiray Cabdimaaligna waa soo fadhiisanayaa, qof kasta oo wariye ah oo Soomaaliyeed oo la xirana waa u soo fadhiisanayaa. meeshuu rabana ha ka imaado, meeshuu maxay tahay rabana reerkiisu ha degaan. waxa weeyaan waan u hadlayaa
especially hadda waqooyi haddii xataa cabdimaalik soo daayaan oo wiil kale xataa cabdixakiin oo kale xirtaan mid kale oo weriye ah still waan hadlayaa mid kasta waan u hadlayaa waanan taraagareynaya inta tabartee ah inaan maxay tahay wixii xaq ahaa aan u doodo because waa xaq qof weriye aan waxba geysan oo masaakiinta u gargaari jira in la xiro walaalahay waxaan ka codsanayaa صفية قاسم أباي فردوسي إي سودو أباي معان آدم كو سلام يا thank you so much thank you سودو أباي معان وكو سلام يا أدي فاميل كرنان I love you guys إي سودو أباي معان مركو وحان ليا هاي ولا ليال ولا كان عبد مالك وحوين قف قيمة لي قف كان قيمة لميل كستو أدونك جوغان أنكو دمانو not only وريه إنو يهي وانينكي دادكي مساكين تأها كي عريانة كي إندولة kii waalan kii maxay tahay waad aragtay ninka geedka ku xirxirnaa noloshiisii oo dhan la ilaabay oo ninka waalan loo bixiyay Soomaaliyana waad ogtihiin maanta qofkii oo cilad leh ama maxay tahay waalan ama maxay tahay lugla ama gacan la ama magacabayba u bixiyaanbo luglow garblow illow maxay tahay waalow waa ogtahay meel baa lagu xiro la isaga ilaabay maantana waxa la yiraahdaa xaas buu raadinaya inuu guursado rabaa إلهي سبحانه وتعالى وحي أقصو ديبي نولوشي سي عافمات كيس عبد المالك الله سبحانه وتعالى باوحو الباء هجاجيا إلهي باوحو البديع سكا هجاجان لكن إلهي قلبك عبد المالك ونظيف طابة إلهي أبو هجاجي ويلكا ولالكين أو صوماليات إن إلهي ما أنت جيتكو كحرنا ولقتو وقاقوض إلهي إنو كفو جيو ولا ليالو قفكاسو كل مركا وأنا أقدمنا وأنا أؤوينا وأنا أقعنا وأنا أبرورنا reality because qofka qiimaha leh maxay dadkii xanuunsanaa iyo kii lug laa iyo kii garab laa iyo kii u xeynayay waxa weeyaan baaba sorry waxa weeyaan walaalayaal inaan xooga saarno inaan qofkaas oo kale qiimihiisa iyo qadarintiisa walaaltinimada uu dadkiisii u haayo innagana inaan ku sharafno because بريتا أنا كنا هذا واحد نقول عن ساسون بنوق ده لها ما أنت هذي نلاش باب أكاتاي عبد الملك دتكو ألباب كوسو قرعون بان أهالين كل جينا وأنا نبدأ إلهي وقرقرنا ولكن عبد الرحمن موسى آد بنكو سودوينيا سودو آد بنكو سودوينيا ولا الآدي آد بنكو سلامة يا أدي جينا ما فاهم الكاجي غير كورن بوا سلام يا ولا ليال مركا إن ولا ليال وحلي هاي دمان تيم با ملكستو أنجوجنو وأنا أقول منا ولا كان عبد الملك وأنا استاجنا وأنا أوينا وأنا أقبينا وأنا أبرامبرنا سببت أن صاحنا إن أنا وحيتاي ومدى قيمها لها يدوا أنا قد ماتي Soomaaliya dadka qiimaha laha waa dhamaadeen Soomaalida intii xoogaa waxa noo soo haray 20% baa dhaqdhaqaaqi iyo aqliga iyo maskaxda ku jirta intii aan kale waa hurdnaa ma fahanteen maadaama aan hurdno hurdada waa inaan ka kacno aniga waxaan halkaan u soo fadhiistay waxa ogaataan igama aha aniga inaan waqti dhumiyo waqtigayga aad buu qaali u yahay waxaan halkaan u soo waxay inaan walaalayaal idin baraarujiyo inaan idin dhiiri geliyo inaan maxay tahay khaladka aan isu sheegno because wixii khaldan haddaan inagu isu sheegin waxaan noqonaynaa qoom baab ayo adduunka rogmaday adduunyada dhan inaan qoom rogmaday ku noqono ma rabno qoom rogmaday intaan noqon lahayn waxa ka fiican inaan qoom wax isu sheega noqono maanta intuu ku jiraa baan u malaynayaa wiil kaasimkayga ah Mr Jibriil baaloodu ila yaab wuxuu yiri Jamiilo markaa soo fadhiisato oo midnimo programkaaga awoodid waxa ka hadashaa wax wanaag ah Soomaalidu wax wanaag ma ogola wuxuu dhahay qabiilada caysi dadka dhan ku soo raacaan markaas wuxuu yiri meesha hadda 100 qof ka daawanayso waxay noqon doonaan kumaan kun qof because Soomaalidii waxa ku yaraaday wixii wanaag ahaa inayna jeclaanin wixii wanaag ahaa inayna sii dhageysan haddaan hadda laakiin dhaho reehebelay kulli waa soo yaacaysaa haddaan hadda dhaho reehebel lugta qaloocato kulli waxa isqabsanayo ilaa YouTube oo socona videogayga marka waxa wanaag leh walaalayaal dhamaanteen إلهي وحير وح وناجا كجرو إسفرع أو إسو شاجا أو محيط وداجا أو قيب صدا أو إسو جد بيه وح وناجا كجرو ولا ليال عن قيب صنو أو أن إسو جد بينو أو أن تراجرينو إن عن ضدكن ومديني ومدو حنا يقل منتي أو إلهي وحمق قلمه وحنا ما بابيش أنه شيطان بان بابيه مركا عن زدبقة بنو أو أن إنه قرن نقولنا ضد وناجا إسو جد بيه وناجا إسو شاجا ولا ليال qof kasta oo Soomaaliya haduu istaago oo ideyada wanaagsan oo banaanka soo dhigo oo dho khalad way waxa ku jirnay not only dadkeena inay hagaagayaan waxa hagaagaya ummadeeni iyo future-keeni dambe oo soo socda ayaa hagaagayaan awlaadan dhalayno kuway sii dhalayaan ayaa future-ka u hagaagaya marka insha Allah bilmilahi kariim waxaan idka codsanayaa horta marka ugu horeysa haddaan wax khalad ku hadlo kulligiin afwan haddaad qalad iiga fahantaan kulligiin i cafiya insha Allah bilmilahi kariim at the same time waxaad ogaataan
waxa aniga inta isoo fariisay jeceela u qabo Soomaaliyeed ay tahay iyo jeceela ummadayda u qabo waxa ay ii baadar garanayso dad baa aniga maasajiido dad baa iigu xanaaqan maxaa Cabdimaal uga hadlaysaa war hadaa Cabdimaal ka hadli way maxaan ka hadlayaa waa wiil walaalkay waa wiil Soomaaliyeed waa suxufi waa dadkii ninkii masaakiinta u gargaarayay wax ka wanaagsan oo aan ka hadli lahaa adduunka ma jirto because markaan shala aan u ordaayay maxay tahay ninka la yiraahdo gamaadiid oo aan qaylinayay oo Puntland aan ku qaylinayay anoo Puntland ka dhashay ma igama ahayn inaan maxay tahay asaga kaliya u doodaay qof kasta waa u doodaa qof kasta oo wariye ah oo fanaan ah oo shiiq ah oo maxay tahay ummadda sumcad ku leh qofkii qoladii xirata ilaahay oo aniga aabahay maxamed jacmo xirto waa la dagaalayaa waana ka soo horjeedaa because waa khalad ummadda noo dhaqdhaqaaqaysa iyo ummadda maxay tahay ummadda u gargaaraysa iyo inta wanaaga jecel kaliya inal ka dhameeya ma aha walaalayaal inal ka dhameeya ma ahan waa inaan isdaba qabanaa waa inaan kulligeen ogaanaa maxay tahay 28 sano soo dhaaftay waa inaan wax ka barano maxaan ka baran karnaa wixii na soo dhaafay bal aan fakarno maxaan ugu dhacay dawlad kale nama soo weerarin nama baabi'inin maxay tahay balaayo kale nagu meemaan annagii unba isbaabi'in marka inaga maxaan isu hagaajin weynay oo hagaaga uga fakari weynay waa ka fakari karnaa waa wax basiida waa wax easy ah waa wax aan kulligeen maskaxiyan haddaan xisaabtano aan heli karna ansarkeeda marka walaalayaal waxaan idin leeyahay dhammaantiin inoo kulligeen idin salaamayo oo kulligeen idin mahad celinaayo sida khayrka qabto oo wanaagsan oo aad igala soo qayb gashaan midnimo program kulligeen waa inaan xooga saarnaa walaalkeen waxa loo xirtay iyo inaan mid damba la xiranin in la soo daayo iyo waliba mid damba oo maxay tahay wariye ah ama maxay tahay ummadda u gargaaray ama sumcadda ummadda bulshada kule magac wanaagsan inaan la xiranin because ninkaanu anigu waxaan aaminsanahay madaxweynaha Soomaaliya inuu noqon doono run marka idin sheego qofkii community centerka maxay tahay saas organizer ah oo ummadda saa ugu soo gargaaro oo yaqaana maxay tahay naxariistu ku jirto oo yaqaana diintu waxay tiri oo yaqaana maxay tahay qiimaha dalkiisa iyo ciidiisa kaas way kan madaxweynaha noqon kara ma beentayba kaas way kan madaxweynaha noqon kara nin iska soo toosay wuxuu rabo helo inuu la qaraba kaas madaxweynaha ma noqon karo آمين 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 جبريل نور آمين ولال مركا ولال يالو إن شاء الله بالله الكريم inta xunna maxay tahay waxa weeyaan dadkeena markaan anigu u fiirsaday oo Soomaali eegay oo aniga aan maskaxiyan aniga kaliya aan cabiray programkan waliba intii aan hadda live soo galay oo aan soo hadlay markii aan cabiray bulshadeena runtii bulshada Soomaaliyeed 95% waa dad fiican 95% waxa kaliya hoo jira waxa weeyaan politician siyaasi ayaa dadkii kala fogeeyay siyaasi ayaan wuxuu nagu kala xirxiray xaafado yar yar ah xaafadu nagu kala xirxiray si kala kuma garataan xaafado yar yar nagu kala xirxiray marka siyaasiga xaafadaha nagu kala xirxirayay bulshadii intii fiicneed baa ka badan bulshadu ha baraarugto oo Soomaaliya baraaruga oo qofkiina qiimaha la qolo kala shisheeyana ha u ogolaanina dhexdiinana ha u ogolaanina hadda ani ku xadgudbay iga qabta hadduu maxay tahay madaxweynaha maxay tahay Mareykanku ku xadgudbo qofkii qiimaha laha wadankan waad aragteen ma la ogola inuu ku xadgudbo maxay tahay saxaafadda lama ogola inuu ku xadgudbo qolo diin haysata lama ogola inuu ku xadgudbo group maxay tahay color oo gooni ah ma la ogola waxyaabahaas waa khalad walaalayaalo waa khalad walaalayaalo qaar baa ile ii soo qoray message dhahayaan naya Cabdimaalik dadkiisa u xireenaya maxaa ka rabtaa maxaa ku daba dhigay oo xoogaa aflagaaday wax geysanay laakiin mid baa idin sheegaya Cabdimaalik dadku u xireeyaan anigu kamid ahay Soomaali baan ahay waxaan ahay qof Soomaali oo wadankeeda jecel qof kasta oo Soomaali oo adduunka neefsado oo meel kasta ku jira anigu waan jecelahay tan kaleetana hooyo maxay adduunka ugu jeceshahay hooyo kasta oo Soomaaliyeed waxay adduunka ugu jeceshahay waa awlaadda Ilaahay siiyay awlaadda Ilaahay siiyay Cabdimaalik waa adeerkood Somaliland waa adeeradoodii iyo awoogood kulli waa dadkaygii waana dalkaygii Soomaalina aniga waxba iima kala aha kulligood waa ii dadkaygii igama aha hadda markaan idin la hadlayo anigu inaan birta rabo subaxinaan Soomaaliya u guuro Soomaaliya inaan aadin baa laga yaabaa aan u soconba laakiin waxaan rabaa future-ka Soomaaliya iyo aayihii dadkeena iyo dalkeena iyo ummadeena inuuna saa ku dhamaanin kuna baabi'inin kuna baabi'inin aan walaalayaal rabaa marka insha Allah bilmilahi karim kulligeen aan dadaalno waxaan idin ku codsanayaa dhamaantiin ii soo qora free coldon dhamaantiin waxaan ku codsanayaa free coldon walaalayaal waa idin baryaynaa Soomaaliland coldon soo daaya ilaahay ka baqa asaga oo xiran ayaa xataa Soomaali wanaaga uu leeyahay Soomaali inta isu tagtay u juus gareeyeen bilad sharaf in la siiyo isagoo xiran oo xabsi in kugu jira ayaa ummadii Soomaaliyeed intay meel isugu tagtay waxay go'aansadeen inay siiyaan shahaado
shahaado sharaf ayay siiyeen waxay u siiyeen bulshada ayuu qiimo ku leeyahay bulshada Soomaaliyeed ayuu qiimo ballaaran ku leeyahay walaalayaal bulshada Soomaaliyeed ayuu qiimo badan ku leeyahay nad qof kaliya inuu danaystay waxa loo daneeyay ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay joogto Coldoon wuxuu tagaa meel kasto oo Soomaali joogto Coldoon waa ninka fanaanka miskiinka ahaaye maxay tii awalba dadka la liidayo ku jiray intuu xamar ugu tagay maxay ka soo saaray meesha ku jira oo ummadda dhan taashka ugu ifiyo dhahay waa kaas ninkii ogaada dhamaaye abwaanka ahaaye fanaanka ahaaye Soomaalinimada iyo maxay tii in calanka Soomaaliyeed u soo dagaalamay walaalayaal insha Allah bilmillaah kariim waxaan ka codsanayaa dhamaantiin inaan kulligeen u wada istaagno walaalayaal hal iyo laba yaa la fiirinin walaalayaal waxaan ka codsanayaa bulshada maxay tahay Somaliland inaa u kacdaan oo diidaan oo ka soo horjeesataan anigu weyn kamid baan ahay bulshada Somaliland baan kamid ahay qof kasto Somaliland adduunkan ugu jecelahay wallahi inaan been idin sheegin waa dadkaygii waa dhiigaygii waa familkaygii waxaan idin leeyahay walaalayaal qaladka diida the only thing anigu aan hadda u hadlayo waxa weeyaan xaqii qofka walaalkeena oo wariye ah ama masaakiinta u gargaara oo ah maxay tahay assistantka ummadda dhibaataysan qofkii u gargaarayay inaan khalad lagu xirinin oo aan loo xirin any whatever marka laga fakaro because asagu kuma jiro anagu siyaasiyiin ma nihin siyaasi shaqo kuma lihinin shaqada yada ma aha wax siyaasiyiin isku haystaan wixii maxay tahay raba idinku kala go'aansada laakiin when it comes to qof wariye ah oo waliba ah Coldoon oo kaleeto walaalayaal ha xiranina walaalayaal ha xiranina oo sharafta meel maxay tahay ma fiicna waxa la yiri dhagax meel dhow ku dhaqaan dhawqana meel dhow ku dhacaa waa wax qalad ah waa wax loo baahan yahay in idinkuna ka soo horjeesataan annaguna ka soo horjeesano ummaddu waa inay ka soo horjeestaan wali ani waxaan la yaabana ilaa hadda shicib Somaliland oo intay kicin dhahaaya ma arkinin war maxay tahay ninkan la xiraha la soo daayo maalin dhaweed baan alla waxaan arkay burco dhowr qof oo meel taagan waa khalad walaalayaal وخلط ولا ليال وإناد محيط كسور جيستان وإناد ديدان وإناد محيط أركتان قلط إناد هاي إن وريال حرتو ولا ليال وخلط وإناد أركتان إن وريال حرتو مالكستو أدونك كتشوغو إلا حرتو وريال وخلط هدي حمر القحر لها ما أنت تو علدون إنتان ما أنت هالي كبدنا هالي لها وابكسي در لها هدي سومال بطل القحر لها كذلك هدي جبل القحر لها كذلك هدي أني بيدبل القحر لها كذلك ولا ليالو انوير او صومالي جوجتو خلط ان قف وريه اما فنان اما ابوان اما وداد او شيخ او دينتي اسلاميه غدبناي ان محيت الخير وا خلط oo rabo un bulshada inuu wax ku saayidiyo aan rabin inuu bulshada wax kala dhaco laakiin taraagaranay bulshada inuu wax ku saayidiyo walaalayaal insha Allah bilmillahi kariim kulligeen khayrka iyo wanaaga inaan isfarnana aan ku dadaalno waa midda Ilaahay yiri inoo dhan inuu kula ballamay anu halka uma soo fadhiisan inaan qofna dhibaato u geysto anigu waxaan halka u soo fariisto kaliya inaan in aan maxay tahay aan iraahdo wariyaasha aan xirin oo wanaaga idin sheego oo idin dhiiri geliyo oo aan maxay tahay si aan qaladaadkeena ku ogaano because haddaan kulligeen intaan qalad aragno aan iska aamusno oo qalad kala aragno aan iska aamusno awalna nation sii socdo aan nahay oo nation xalkooda alla og yahay ba aan nahay dee saa waa ku rogmanayna waan ku baabi'eena marka intaan baabi'i lahayn oo saa ku rogman lahayn oo ku dhamaan lahayn walaalayaal waxa weeyaan waa isdaba qabanno walaalayaal maanta aan isdaba qabanno oo Soomaaliya kulligii inta two times fikirtaan aan isdaba qabanno oo wanaag aan ka wada talinno waa sidii aniga ila tahay ummadda Soomaaliyeed oo meel kasta ay joogaanna waxa kula talinayaa inay wanaag ka wada taliyaan oo ay xoog saaraan waxa wanaagsan iyo wixii Ilaahayna faray iyo inaan khayrka wadaagno oo sharka ka cararno oo waxa wanaagsan isfarno qof oo maxay tahay diintii iyo wanaagii iyo masaakiintii iyo wax walba dhinac wanaagsan ka matalayo in maxay tahay jeel la galiyo oo 2 bilood jeel ku jiro waa khalad waa big time khalad waa big time khalad waxaan leeyahay dumaashiyaashii waxaan leeyahay soo daaya walaalkay Coldoon soo daaya waan hadlaynaa intaan noolnahay waan u dadaalaynaa waana maxay tahay qof kasto oo khalad lagu xirana waa garab taagnaanayna nad only asaga kulli wixii qalad lagu xiro waan garab taagnaanayna tanna in 10 laga barto oo Soomaaliya meel kasto dadka Soomaaliyeed joogan ama siyaasiyiinta joogan waxaan rajaynaynaa in 10 ka bartaan oo ay ogaadaan qofka qiimaha leh ee qiimuhu ku jiro ee Soomaaliga ah inuu bulshada oo dhan ay ilaalsanayso aynan ahayn only reer inuu leeyahay reer ma laha Cabdi Maalik reer Soomaali oo dhan ba Cabdi Maalik leh Cabdi Maalik saad u ogtiin ba Soomaali oo dhan ba leh ma ahan inuu hal qof leeyahay ama uu hal qof ka yimid ama hal family ka yimid hadda sheekadu taa waa ka weynaatay annaga dhan aan wada ilaalsanayno ilaahayna waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa ta'aala
ilaahay waxaan ka baryaynaa in uunan wax meel fog iyo cadaawo kale iyo meel fog inuunan wiilkaas geynin baan ilaahay ka baryaynaa wuuna guuleysanayaa aakhirka insha allah bilmillaahi kariim magaca bulshada iyo shicibka Soomaaliyeed iyo maxay tahay masaakiinta uu ku leeyahay in ilaahay waa ugu gargaaraya laakiin walaalahay waxaan ku codsanaynaa inay xil iska saaraan oo ay inayba haystaan intaas oo dhan maba aheenbo ummadda ilaahay oo dhan baa wada hadlaysa annagu siyaasiyiin ma nihin waxa hadlayo oo dhan siyaasiyiin ma aha dadka hadlaya shicibkii waa dad shicib oo qof walba Soomaali ah khalad hadii lagu qabsado u dadaal laha oo u diid laha qof kastoo shicib oo adduunyadan jooga xataa qofkii Soomaaliland ka yimaado waa la soo wada dhaweeyaa sidoo walaalkay xabiib xala laha kulliga wixii qofkii yimaado meel kale ka yimaado waa soo dhaweynaa annagu shaqo kuma lihin siyaaso waxaan shaqo ku leenahay kaliya qaladka inaan ka ilaalino wixii oo qalad ku dhaqma hadday xamarland ay gardarro ku qabsato fanaaniinta ama ay gardarro ku qabsato maxay tahay abwaaniinta ama ay gardarro ku qabsato maxay tahay wadaadada waa kaceena waana dagaalameena كذلك عبد المالكنا وكذلك قارب أنا يسوق قرنا أديك محاك قالنا يا ناك سومالان متين ورانو سومالان هذا هذا يقول إبرو سومالي لامبان هاي مش سومالي لامبان هاي ساسة إبرو at the same time not سومالي لأن هاي سومالي بان هاي سومالي قف كستو سومالي وميل كستو جوجا بيدا بكن نقول حروا وأودو دايا ميل كستو قف سومالي جوجو وأفك سومالي وكوه الله أنت عن نفسنا يا أدونك سعرنا هاي وأودو دايا because وضن كاني waan burburnaay 28 sano iscunay looyaro ma qabno maxkamada fiican ma qabno maxay tahay cadaalad ma haysano fiican annaga inaan isu doodno waay yaa noo dooday hadda annaga isu doodanin walaalayaal intaasna waa iga talo waa iga maxay tahay just inaan idinka dhan idin baraarujiyo iyo dhiirigelin please khalad yaa la ii fahmin waa walaashinimo wax yar waxaan idin dhageysiinayaa sheehas cusub oo loo soo saaray walaalkan Cabdi Maalik dan insha Allah bilmilah karim waxaan ka hadli doonaa توبك هدي إلى هيراهو فري علدون إن شاء الله فري علدون بان لنا ولا ليال فري علدون هذا ما حسن ولا له هذا ما حسن جبريل نور آدي أدب أخو سلامية thank you ولا شاركها إلا بنا إن شاء الله بالله كريم صور كاس وضو قرن سان وامير عامر يفرسمديسي امير عامر الهي رب الرحمن هغوليو ninkaas waxa waay wallahi billahi waa halgamaa weyn waa halgamaa Soomaaliyeed weyn waa ودني سودو أبو ودني دبا سودو أدبا كو سلامايا صحفيgu xar weeye maxaa loo xirnimayaa bay tir gabadhaas صحفيgu xor weeye maxaa loo xirnimayaa
walaalyaal insha allah bilmillahi karim waxaan leenahay free coldon walaalaheen somaliland please soo daaya wiilka ah maxay tahay wariyaha oo haddana ah ninka masaakiinta u gargaara oo ummadda soomaaliyeed ee dhibaataysan hadday curyaan tahay hadday camoolo tahay hadday tahay maxay tahay dad maskaxiyan mental ill ah wiilkii u gargaarayay inaad xirataan ma ahayn fadlan soo daaya waan jecelnahay dadkeenaa tihiin no matter whatna dadkeen waa dadkeeni markaa wariyaha soo daaya ayaan leenahay walaalaheen waana idinku codsi waa naga codsi ma aha waxaan idin force garaynayno waa codsi please soo daaya walaalkeen ma uu ahayn in la xiro waxay ahayd inaad ashwal iyo hargeysa dhexdeeda bilad sharaf ku siisaan oo jiddan asaga cola ugu magac dartaan oo wanaaga aad ku garab istaagtaan si wiilal badan iyo gabdho badan oo asagoo kale ay noogu soo baxaan oo mustaqbalka ay waddankeena oo dhan u hantaan oo u hoggaan fiican ugu noqdaan because qofka wanaaga samaynayo ama maxay tahay bulshada magaca ku leh waa la sii horumariyaa si ummaddu bulshadu ay u yeelato dad wanaagsan oo magac bulshada ku leh haddii laakiin halkii qof iyo labadii qof oo noo dhaqdhaqaaqa aan jeel ku ridno ama aan maxay tahay baabi'ino ama aan dilno ama aan cadaawo gacanta u gelino minis innagii ayaan rabin inaan meel gaarno futureki waddankeena ayaa wuxuu ku koobnaanayaa isbaabi'is iyo isdhamays iyo inaan waddankaba qof caqli leh iyo qof damiir leh iyo qof dhaqdhaqaaqaya midna inuuna ka soo bixinin marka insha allah bilmillahi karim taa ha laga wada hortago hana la diido hana laga fakero oo yayna dhicin mar dambe insha allah bilmillahi karim walaalayaal caawa toobiga labaad insha allah bilmillahi karim oo aan ka hadli doono waxa weeye baryahan oo dhan waxaan aad u maqalnaa meel kasta oo Soomaaliya ka mid ah hadday tahay maxay tahay koonfurta meelahaas maxay tahay la dhahayo baydhabo iyo u dhow iyo maxay tahay ilaa iyo Kenya agteeda ilaa iyo maxay tahay kilinka agtiisa ilmihii Soomaaliyeed waa la xadaa inta annaga isku maqanahay oo Soomaaliya annaga isbaabiinay oo Soomaaliya annaga cudurada isu qabno oo Soomaaliya annaga kala fognahay oo annaga reer hebelow ku hayno dad ayaa business naga furtay adduunyadii kala business bay naga furteen idinkoo indhihiinu shan yihiin oo taataagan ayaa caruurtiina la qaadanaya idinkoo indhihiinu shan yihiin oo taataagan yihiin ayaa maxay tahay gaarina lagu wada guranaya oo qof walba intii wax la cabsiye gaari lagu guranaya waxaan dhihi lahaa ummadda Soomaaliyeed waxaan ku dhihi lahaa istaaga oo ka feejignaada oo diida oo maxay tahay qof walba bunta kuntuu soo gato ilmihiisa yaan la xadin war bunta ku ilaalsa ilmahaaga ilaahay subxaanahu wa tacaala baa ku yiri de markii lagu yimaado gurigaaga your own house markii lagu yimaado silaali xaq baad u leedahay inaad fight back samaysid oo aad islaalisid oo aad isdifaacdo marka dadka ilmaheena xadaayo oo meel walba la yiri ilmihii Soomaalida ay gabdhihii waaweynaa xataa maaha ilmo wiilal waaweyn iyo gabdho waaweyn baa intii la carra beerka lagala baxaya beerka xataa kaba dhargaan miya 28 sano la baxayeen meesha loo guray dadku ma cunaan beerka in la cunaan u maleynaya waxaan u maleynayaa beerka Soomaaliga waa beer macaan oo la cuno أنا ويابرهاي والله بيرك الصومالي وحق مالينا يا ضد بابا هنجوري عنا أو محيط وحكدوا يا بيرك الدنيا ذا كله والله ليالو ميل كستو اللي تشوفه ميل كستو سوق مالي جوبتو وحالي ردت في علمي وعلى حدا تذكينا يقول تاجم بابيرك أنت القلب حاسق يوم ميدا ماشى القطورية قف كهالله يا دولة كهذا شه يا ده قف لها محيط تذكر يجيب على حدا يا طلع يا محيط وحنا اللي يقص ميني أنا ما تشرو هرت الصومالي وحنا آمسنا هي أنا هذا قبر يربان نجيسني ما أنت يوتيوب كأوتري مركل إلى عرّي بيالي عبسيو سحر با ولا سحرين believe me Soomaaliya oo dhan waa sixran yihiin quraan isku akhriya kulligeen waa sixrannahay because hadda wanaag haddaan ka hadlayno 5 qof iyo 6 qof baa jooga haddii qabiil aan ka hadlaynana billions people baa isku imaanayso marka si naloo baabi'iyo qabiil baa nala ku sixray si naloo baabi'iyo annagii baa waxa la saga kaaya dhigay nala ku jeediyo midba midka kale lagu jeediyo cadow looga dhigay waxa dadkii oo dhan waxa la cabsiyay waxa la dhaho iska ilaali dadkaas reer hebel waxa dadkeeni loo qalanayo oo beerarka loogala baxay oo ilmaheena anagoo taagan loo xadaayana waa waxa iyo wax la mid ah Soomaaliyay kulligeen quraan isku akhrina meel kasto ay joogtaan wallahi Soomaaliya wadanka Soomaaliya dhan kitaab wuxuu u baahan quraan in la saaro because dadkeeni ayagoo taagan ay dadkoodii la qaadanaya wax ka hadlaya xitaa ma arkaysid laba news baa hadda ka soo hadashay oo sheegayso oo dhahay war maanta gabar baa la carray oo maxay tahay wiil baa la carray oo niman cadaan ahaaba intay wadankeena soo galeen caruurteena la carray wax ka hadlaaya ma arkaysid dawlad ka hadlaysa arkimayso oo dhahayso dadka la carray maxay ahayd oo way dadkayga loo xasuuqaya oo hanjabaysa ama dhahaysa dadkayga lama xad kalaman dilka wixii noo yimaadana waa iska celinaa dawlad xataa dadkeeda dhahaysa war isdifaaca oo islaaliya ma jirto waxa lagu akhriya iyagana waxa la dhaho seexda hurda ilaa ka dhamaanaysaan marka waxa la cabsiye la dhaho iska hurda ilaa aan daldalayno laakiin hadduu walaalka wanaaga ka hadlo ku bood
ama walaalka hadduu maxay tahay cayrso soomaaliyey shaydaanka iska naaro oo hurdada ka kaca aniga taasaan kula talinayaa waana idin leeyahay waana idinku baraarujinayaa waxa socda iyo waxa waddankeeni ka socda ma ahan wax adduunyada meel ay ka dhacda la arkay waxa ka socda adduunkeeni waddankeeni waa distater caadi ah waaye dad ayagoo nool oo taataagan carruurtoodii la xaraay dad ayagoo nool oo taataagan maxay tahay wax la cabsiinaya dad ayagoo nool haddana aan ka hadlaynin ooba kala jeclayn billions of people na saa beerka loogala baxay billions of people na saas loo xaraayo laakiin wax kala jecel iyo wax ka hadlaaya midna aysan jirin ka sheekay aday wax ka hadlaaya wax kala jecel ma jirto wax dowlad isku sheegayo oo maanta intay meel soo istaaga dhahayo maxay tahay buur hakaba iyo maxay tahay baydhabo agteeda iyo shalaambood ilmaha lagala carray ma arkaysid adduunyada kale haddii ninka maanta xaafadeedan madaxda u ah xaafadayada xataa cunug yar gaarihi jiku siiyo ninka xaafadda madaxda u ahaa istaagayo oo dhahayo maanta cunug ayaa accident gaari ugu dhuftay qoladiina waa haynaa investigationa ku socdo soomaali waxa dhahaya ma jiraan waxaas dhahay ka hadlaya ma jiraan wuxuu noqday hilibkii walaalkood iyo dhimashadii walaalkood iyo dhiiggii walaalkood wuxuu u noqday koob kalaas biyo la cabaayo waxba lama aha bigdi lama aha inta aan saas nahay oo dadkeenu ayna qiimo nala lahayn oo maxay tahay qofkeena dhimanay uun qiimo nala lahayn oo carruurteena lala xaraay ayna qiimo nala lahayn oo maxay tahay wax kastoo nool ku sameeya ayna qiimo nala lahayna meel ma gaarayno soomaali maxamedey meel ma gaarayno qofku waa inuu ogaadaa qofkiisa waa inuu ilaalsadaa adduunka qofka maxay tahay xataa xanuunsan oo xanuunka ku dhashay xataa waa inaan lagaa dhibaatayn oo aad ilaalisatid qof lixdiisa lixaad qaba oo maxay tahay qof usoo kacay waddankii ah ama maxay tahay qof waddanka wax kusoo idin lahaa ama maxay tahay walaalka ama hooyada ama habarta ama maxay tahay in adeerka si ugu ogolaataa in la xado ama maxay tahay lala cararo oo haddana loo aamuso afka la wada xirto soomaaliya distateraa ka socdo distater weyn baa ka socdo waxa ilmaheena xarayana waa ummad noogu talagaltay inayna baabi'iyaan oo na halaagaan anu waxaan dhihi lahaa soomaaliyey qof kastoo buntuq gado ilmahaagana yaan lagaa xarin qof kastoo ilmahaagana ilaaliso dowladana ku bushgaree dowlad kasta oo maxay tahay soomaaliya goboleedka iyo mid kasta ha lagu bushgareeyo inaan ilmaha la xadinin ilmaha adduunka waa ka qaali ilmaha adduunka meel la iska xada ma jirto ilmaha easy ma aha ilmaha easy laguma dhalo easyna laguma keena ilaahana siiyey ilmaha ha loo dagaalamo ilmaha loo dagaalamo oo hooyooyinka lala carray oo gabdhaha ilmaha lala carray oo wiilasha lala carray ha loo dagaalamo waa qofkiini waa dadkiini waa dhiiggiini kuwa beerarka lagala baxaayo oo maxay tahay magafo u tagaaya ha loo dagaalamo kuwa badaha isku curaaya ha lala hadlo oo ka jooga ha la dhaho laakiin asmaan fakti waxa taasba kasii daro kuwaas wayba qaxeeni kuwa guriga ayagoo gurigooda jooga intii daf la siiyo magaaladoodii bartiko ayagoo jooga daf la siiyo la rabay in beerkay kaliyaha lagala baxo ama lagala baxayba oo qofna ka hadlayn oo dowlad ka hadlaysa ay jirin what kind of dowlad is that waa yaab walaalayaal Soomaaliyeed sida isku dhaama oo aan sida isku dhaano oo aan isdaba qabanno oo maxay tahay dhibaatada dhinac walba inaga saameysay oo dhinac walba inaga haysa dhinac walba dhibaata inaga haysa oo inaga saameysay aan iska ridno aan iska qabanno wada hadla wada sheekaysta ideada isweydaarsada fikrada fiican gudbiya oo isu gudbiya oo maxay tahay aanu kulligeen walaalo maxay tahay wanaaga ka wada hadalno aanu kulligeen waxaan idin leeyahay qof walba gudbi wanaaga wixii maskaxdeeda ku jiro oo wanaag aad isla leedahay chance bay keeni kartaa oo wanaag bay dadkaaga ku saa'idin kartaa walaala ka hadal please ka hadal because haddaan wada aamusno cabursanaano dadkeennina saa ku fiirsano dalkeennina saa ku fiirsano wax wanaaga ma keenayso haddii maxay tahay lala cararo gabar joogta burco ama wiil jooga maxay tahay salaxley waa meesha aan ciyaalkayga ka imaadeen salaxley wiil jooga maxay tahay lala cararo oo aan aamusno ama wiil bay dhaba jooga lala cararo oo aan aamusnaado that's wrong. That's so wrong because waa dadkeeni waa dadkeeni waa ilmaheeni waa walaalaheen waa familkeeni wiilka maxay tahay boosaaso joogay wiilka burco jooga baadiyaha lagala carray waa dadkeeni kulli waa dadkeeni aanu gurmano aanu istaagno intiina waliba qurba joogta iyo inta dadkii dhalinyarada wax baratay oo Soomaaliya joogta waxaan kula dardaarmayaa dadkiina ilaalsada oo haydin qiyaasnaato dadka maxay tahay haydin tirsanaato dadkiina dhimanayo maxay tahay bil kasta kumaankanka people oo lala carrayo oo beerarka lagala baxay oo kaliya lagala baxay oo qofna ka hadlaynin ha laga dooda hana laga hadlo waxa afka loo haysta ma aqaan qoladan maxay tahay ilmaha guranaysa oo beerarka la baxaysa kulli waa qolo la og yahay qolaana la shaqaynaysa waxa loo aamusan yahay marka stop right there people waa inay kacaan oo ogaadaan ilmaha la guranayo la dhahay darsin ilma yareero iswada leeyahay laba sano jiro oo gaari laga soo buuxsaday xagee laga keenay oo inta state ku Soomaaliya laga soo xaray inta state ay tahay inta magaalo ay tahay ba midba laba meelba saddex meelba afar laga soo xaray why dadkan oo ilmaha xaraaya ma la iska ilaaliyo ma la iska qabto maxay yihiin xagee ka yimaadeen maxaa taariikhdooda loo ogaan laayahay
maxay tahay ilmaha dadka waaweyn gabdhaha waaweyn iyo wiilasha waaweyn oo la xadaayo intii wax la cabsiiyo soomaali dhanna waxbaa la cabsiiyey kulli waxbay cabsan yihiin anigu waaba aaminsanahayba because sun haddayna cabsaneen sun qabiil la dhahay cabeen ayaga dhan qabyaalada qabiilka ilaahay waa baneeyey laakiin qabyaalad la dhahay cabeen sixir qabyaalad la dhahay cabteen quraan wada akhrista ani kolley saas aan leeyahay marna waa qaylina marna waa aamusa marna waa hadla marna waa idin baryaa wax kaloo aan sameeyo ma aqaan saasaana ku jirayaa forever because dadkayga khaladaad badan baan uga jeedaa waxaan u jeedaa waxyaaba badan oo khaldan annagiina ma rabno inaan hadalno qofkii hadalnana waa la dhaliilaa waana la maxay tahay waxaa la leeyahay oh no markaa hadda no waa dhamaatay afles qabto adduunku waxaan maraynaa 2017 adduunkii maaha adduunkii hore adduunku maanta technologygii iyo maxay tahay warba faafintii iyo wax walba easy bay noqdeen qof walba oo adoo gurigaaga joogta shaqaan ka yimid ilmahayga baan la joogaa reerkayga baan dhaqanaya at the same time waa idiin sheegaya waxay qaldan walaalayaal waa idiin sheegaya waxay qaldan marka waa inaan isdaba qabanno oo dadkeena daba qabanno oo dalkeena daba qabanno oo carruuraheena la guranaayo waa inaan daba qabanaa walaalayaal waa inaan daba qabanaa haddaan daba qabanin wax noo qabanayo ma jirto haddaan mid walba dhahno oo reer qurac buu ahaa cunugii la xaday laakiin aan iska aamuso reer qurac markii laga xada adiga reer qansaxo ma lagu daynaa mise reer hebelow ma lagu daynaa mid la daynaayo ma laha qof kasta tartiib soomaali baa tahay ummadda adduunka joogta idinma yaqaanaan reer qurac iyo reer qansax idinma yaqaanaan state hebel iyo state hebel ummadda adduunka joogta waxay u tihiin soomaali adduunyada dhan soomaali ba idin yaqaanaan afrikaanka dhan soomaali ba idin yaqaanaan waxay idin yaqaanaan reer hebel iyo maxay tahay qolaa maxay tahay sarreysa ma jiro soomaali afrikaan oo east africa degana u wada tihiin dadka dhan marka ilmihiinii iyo dadkeenii iyo dalkeenii ha loo wada doodo anigu saas aan idin dhihi lahaa because waa wax waajib nagu ah waa wax qasab waajib inagu ah kulligeen inaan ka wada hadalno wanaaga dadkeenii iyo dalkeenii waa wax mataqaanaa ah inaan xaqa inaan mar hore ka hadalnana ahayd haddana waa ka hadlaynaa idinkuna bilaaba aniguna aan wado kulligeen aan ka wada hadalno because waxa socda waa wax disaster wallahi waa disaster wallahi waxa Soomaaliya ka socda waa very disaster because dad ayagoo taataagan oo iska farfadhiya ilmahoodii la guranaayo dad ayagoo taataagan oo iska farfadhiya carruurahoodii beerarka lagala baxaayo haddana iska aamusan iska okay ah dad maxay tagaa la dhahayo magaalada dhexdeeda intii loo imaado Hargeysa baa lagu rutay gabar yar la carra iyo laba gabdhood hadhow meesha tagtana laba kala ku xiran dhinacaas kale tan koonfurtana sidoo kale la yiri xamar dhexdeeda ilmaha waa lagala baxaa carruurta dhalinyarada intii la baxaa oo shukaasi nooc something lagu ku haystaa haddana beerarka lagala baxaa la waayaa meel ay ku nool yihiinba waxaan iska qabta ilaahay ka baqa oo ilmaha iyo dadkan la guranayo waa dadkeeni qof kasto waxaad ogaataa ilaahay oo jareer iyo jilaac iyo carab iyo maxay tahay bahalkii whoever Soomaali ah waa Soomaali dadkiina u dooda oo dadkiina u istaaga oo qaladka iska qabta haddaadna qalabka iska qabanin waxaad noqonaysaan qoom rogmaday waana almostna waa ku dhownahay because 3 decade baan hadda mise 4 decade baan saasnahay walaalayaal aan isdaba qabanno Soomaaliye aan isdaba qabanno oo sida aan ku jirno aan ka weynaano aanan iska bedelno insha Allah bilmillahi kariim waa walaashin midnimo aad baan idin salaamaya dhamaantiin haddii wax qalada aan ku hadlayna dhamaantiin cafiya Allah subhanahu wa ta'ala ana cafis baan weydiisanaya walaalayaal aniga jeceelaan Soomaalinimo u qabo ayaa iga hadal siinaya jeceelaan ummadda Soomaaliyeed jecelahay baa iga hadal siinaya dhiiga dadnimo ugu jirta iga hadal siinaya idinka waxa idin ma dheeri laakiin am just one waxaan la aamusnaa inaan ka hadlo because wax badan baan dareensanaa wax badan baan qurbo ilaa maanta dhalinyaro ah yirisaha ilaa hadda aan cararay markasta maskaxayda waxa ku soo dhacda bal horta aad inta carartide xagee horta marka hore ka timid asalkaaga maxaa ahayd qof kasta Soomaaliyeed waa inuu taa isweydiyo qof kasta Soomaaliyeed waa inuu taa ka fikiro taasina aniga waxay ugu dhalisay Soomaalinimo inaan dadkayga Soomaaliyeed iyo dadkaygii aan raadiyo waxaan u sheegi karan aan u sheego igama aha aniga baahi aan maanta Soomaaliya u qabo qof kasta taa ogow igama aha inaan leeyahay maanta oo Soomaaliya aniga hadda aan u socdaa ama waxbaan ka rabaa ama waxbaan ka rabaa enough time waa shaqeeyay enough time na mataqaana alxamdulillah laakiin waxaan rabo kaliya waxay tahay inaan baraarujiyo inaan maxay tahay dhiiri geliyo inaan qaladka iska qabanno kulligeen aan qaladka ka gaarno before it's too late wadankeeni qaladka xun oo ka socda wax yar heestaan dhageysana waa idin soo noqonaya wax yar insha Allah bilmillahi kariim dhamaantiin waan salaamayaa dhamaantiin aad baan idin salaamaya waan idin mahad celinayaa sida ay gala soo qayb qaadateen programka midnimo فري علدون إن شاء الله فري علدون
wadani aad baan kuu salaamaya walaalkay thank you so much مروة آدم كو سلام يا باي سودو معان آدم كو سلام يا لول ما صاحبه I love you هذيك المهبة إن شاء الله ورنتا النجاد ولا له نجاد ويني ها ورن إن شاء الله إلهي سبحانه وتعالى هينودو إنا وح بدلنا وحيابيه هو روضنا كأنك سعودة وح بدنا كبدلنا إن شاء الله بالملاك الكريم دمانتين باي معان دمانتين باي لولي دمانتين الله نحفظه وما سنتا بايو إن شاء الله بالملاك الكريم إن شاء الله صوماليا هم يدودو صوماليا هاي سرعدو فري علدون بان لنا هاي love you too بايو midnimo Soomaali haday midnimo helaan wax kale wallahi inayna u baahnayn Soomaali the only thing ay u baahan yihiin waa midnimo wa alaykum asalaam wa rahmatullahi wa Musa baayo aadan ku salaamay soo dhawow أباي إلهي ساد وإلهي أكو جعل هذا أباي أنا قنا وأنا جعل هذا دمانتين صومالي محمد وأنا جعل هاي والله إلهي مقع إنسان كل عرفي قف صومالي وأنا جعلين أون يفسروا أف صومالي كحل مجرو كل صومالي أنا جعل هاي دقيبة مينو عثمان لان سودو والالكي أدبا كو سلام يا رير لندن أدبا إدين سلام يا دمانتين نولو إن هذا رادق بنولو إن شاء الله سومالي هم يدودو هنا إسراع إن شاء الله بالملاي الكريم قدومي يا ولالو هاستو معها وودني وتسمعها هاس أن أو تمشى معها بو وهاس ودني دقي مين ومن نمو waxyaabaha oo midnimada ah oo kale to waa inaan sometimes iska soo deynaa noolo axmed walaalo adigana sidoo kale thank you ismaanlan thank you abu dadkan wada ooyay indhu qooyeen midnimo maru lule walaashay macaan thank you ilaahay ii ka daaya baay ماي قماد أبو قومي
ما يقلد ما جرى ولا وفي عنها وحلا الشيء أدبا وما سنتع شولي وكذا ما هاد علينا يا لكن واهس مني ما المدون Years it seemed like a dream. إن شاء الله اوكي اباي مع سادو هاي ان شاء الله اباي مع سادو ان شاء الله ان كستو انغو هيسان سو دايو maaha heesa jecel ama wuxuu sheegay waa badankooda intooda badan waa just wadani iyo wax midnimada Soomaaliya ka sheekeynaya taasna waxaan maxay tahay dhinaca kale aan idin tusaaleynayo kaliya ayay ka mid tahay igama ahan inaan maxay tahay inaan music oo idin soo deeray music ahaan igama aha marka taa la soco insha Allah bilaakin aadaan u mahadsantaa baayo saadu aad baan kugu mahad celinayaa dhammaantiin waan salaamayaa walaalayaalo waxaan ka hadlaynaa haddii ilaahay raaho Soomaaliyay adduunyadan aad arkaysaan ama wadanadan aad joogtaanba intiina badan waxaan u maleynayaa hadda oo ku jirta meeshan waxaan u maleynayaa waxa joogtaan qurbaha wadamadan aan joogno ama ilaahay nu keenay ama ilaahay nagu badbaadiyay ilaahay nagu risaaqay aan ku noolnahay guusha ka muuqata iyo wanaaga iyo quruxda ay ku nool yihiin waxa lambar 1 ka ah waxa weeyaan midnimo waa dad midaysan waa dad ciidooda jecel waa dad dadkooda jecel waa dad aan ogolayn hal qof in maxay tahay si iisa uga dhinto ama ka soo horjeeda marka waxaan oran lahaa ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan ha ku dadaalaan midnimada ummadda Soomaaliyeed because midnimo la'aan iyo isku tiirsanaan la'aan waa waxa Soomaaliyeed 28 years ay ayadana u basbeel rabto oo u baabaasan tahay marka walaalayaal waxa aan kala hadlaayo oo aan maanta hadalkayga ku soo gunaanin doona waxa weeyaan midnimadu waa waxa meel lagu gaaro waa waxa qaran lagu dhisto waa waxa maxay tahay sharafta dadka bini'aadanka wadan ilaahay siiyay ku nool ama ku dhaqan sharaftooda waxa kaliya oo min soo saara ama ay dadku yihiin waxa weeyaan wadajir waa midnimo waxa weeyaan waa isku xirnaan waxa weeyaan waa maxay tahay inay dadku dad ay horta qabiil ka sokow iyo reer hebel ka sokow iyo lugta sare iyo lugta gaaban ka sokow dadku waa inay aaminsan yihiin Soomaalinimada waa ina Soomaalinimadiina abroad ku noqotaan oo aad ogaataan wax la mid ah inayna jirin ilaahay waxa uu ka dhigay Soomaali baa tahay Kenyan ma noqonaysid qoladii kale dariskeena ma noqonaysid Ugandays waxa tahay Soomaali qabiilka waxa ka horeeya ina horta marka ugu horeyso Soomaali tahay oo haddana qof islaam oo ilaahay diinta islaamka uu siiyay aad tahay oo haddana maxay tahay hal af iyo hal dhaqan aan leedihiin oo haddana kulligiin hal meel ka wada imaateen because qof kasta oo Soomaali ah qabiil kasta oo Soomaali ah dhalay qof maanta dhahay habartay ama abtigay ama adeerkay kulli waa isku hal family ma jiro qof aan qabiil kale soo galin ama uuna ku jirinin maxay tahay taariikhdaas oo noloshiisa ma jirto marka walaalayaalow waxaan leeyahay Soomaali Maxameday waxa ah reer hebelka intaan ka baxno aan ku ekaano oo ku adkaysano Soomaalinimo qofkaas muxuu yahay qof Soomaali ah waa qofkaas muxuu yahay qof Muslim ah waa qofkaas muxuu yahay qof walaalkii isku afnaha isku dhaqanahay waa inta kali ah ayaaba qabiilkeena ah qabiilkii ka aan ku bedelno
qabyaalada qabiilka lama bedel karo laakiin qabyaalada ayaa xun qabiilku ma xumo qabiilka ilaahay baa na siiyey ilaahay baa noo soo dhajiyey inaad aabaha iyo walaalka in adeerka ku kala garato kaliya loogu talagalay laakiin la isku abuse gareeyo ilaahay uma soo dejinin inaad walaalka ku lidana ilaahay uma soo dejin inaad adigu tiraado anigu boss baan ahay oo kan ugu sareeyaan ahay lugta sare ahay walaalkayna waa kan ugu hooseeyo asagu kamana guursado mana eego mana uxeeyo na waa khalad ma ahayn saas ma aha sida ilaahay u soo dejiyey ilaahay wuxuu u soo dejiyey qof kastoo Soomaali ah ama islaam ah qabiilka horta soo mogid gaalada xataa way leeyihiin laakiin waxay u leeyihiin only in familkooda inay ku yaqaanaan more than that uma isticmaalaan waxaa rabtid abaay ide awow ide ayay ide waxaa rabtid tiftaaxo waxaa rabtid ide walaal waxaa rabtid ide habartaayaan ahay hooyadaaya baan ahay wax kastaan ku ahay because anigu qof waxaas diidan ma qof wax kasta ogol baan ahay hooyana waan ahay habartaayo kalena waa ahay gabar Soomaaliyeed baan ahay nin kasto Soomaaliyeed gabar Soomaaliyeed baan dhashay so ama hooyo ide ama habar ide ama walaal ide ama abaay ide waxaa jeceshahay ide any ku fudud adiga mid kasta aan waa ka aqbalaya haddaad yar tahay oo jirta 18 jir iyo 16 jir tahayna iyo 17 jir iyo 19 waxa haddaad tahayna hooyadaa baan ahayba anaa runta kuu sheegayo because ilmahayga intaas jiraan 17 jir iyo 16 jir waan dhalay ma fahantay marka waxaan leeyahay Soomaaliyey midnimada waxa ugu horeeyo oo aad ka fikirtaan oo aad number 1 ka dhigataan number 2 ka dhigataan number 3 ka dhigataan midnimo ka dhiga midnimo because midnimo waa waxa kali ah oo aan maanta to 3 decades kii aan soo baaba'sanayn ama 3 decades oo soo baaba'sanayn waxa kali oo naga saari kara waxa weeyaan midnimo walaalayaal waxa kali hooyada baan ahay Cabdifataax hada 18 tahay habareer hooyada baan ahay habarta baan ahay marka ma sha Allah kulli waxana maxay tahay na bedeli kara oo waxay nooga hagaagi karaan waxa waaye in aan maxay tahay midnimada ku dadaalno oo qabyaaladii ka tagno oo qabyaaladii qalabka loo isticmaalay ama maxay tahay aan walaalaheeni si xun ugu isticmaalaynay in aan ka tagno waaye hadii Ilaahay raaho waa inaan u isticmaalnaa the other way oo ah inaan dadkeena midayno inaan wanaaga ka xigno inaan maxay tahay isu keeno bulshadii oo maxay tahay cudurada iyo qashinka kala dhex galay inaan isu keeno waaye waa inaan xooga saarno inaan ku dadaalno midaynta ummadda Soomaaliyeed iyo isu keenida ummadda Soomaaliyeed si cadawga nabaabsaday ee na dhameystay ee maxay tahay nasiib guranaya ee ilmaheena xaraaya ee gabdhaheena waaweyn ayagoo gawaarida ku ridanaya wiilasheena beerarka kala baxaya waxa inta anagu isfiirinayna waa inaan fiirina waxa kale oo maxay tahay eeganaya oo nabaabsanaya ummadda shaqada naga dhiganaysa oo ina baaba'sanaysa walaalayaal waa inaan eegnaa oo u feejignaanaa inagu inaan isku mashquulna maaha inagu inaan is eegana maaha inagu inaan maxay tahay maanta dhakana lagu sareeyo kana lagu gaaban aan ku mashquulna maaha waxa runta ah waxay tahay in aan xooga saarno inaan ummadeena sidii aan u midayn lahayn oo aan ku gaari lahayn guul inaan xooga saarno waa marka walaalayaal waxaan leeyahay dhamaantiin I will never give up. Thank you. Ismailland, I will never give up. I will try my best. Inshallah. Sida baan idin la hadlayaa haddaan rabo hal qof hay dhageysto hadduu rabo boqol hay dhageystaan anigu am still gonna say what I'm gonna say inshallah saasaan idin la hadlayaa Soomaalida waxa la yiri dad badan baa hadda ay dhahay Soomaalida waxa wanaaga ma dhageystaan hadda wax kala sameeyso kullu way kugu soo yaacayaan wow maxay tiri ama uu qabiil caayo hadda sida maxay tiri wiilasha qabiilada caayo oo la dhageysto هذا وحنا سميسد dadka dhan ku soo waxaynaay laakiin aniga daad weey ma aha waxayga ani waxaan rabaa waxa wanaaga ilaahu 10 qof dhageysato ilaahu 5 qof dhageysato ilaahayow maxay tahay may hal qof dhageysto waxaan rabaa wax wanaaga le inaan sheego aniga ilaahayna ajir iga siinaayo ummadana anfacaaya taas la rabaa insha Allah so I'm not going to give up insha Allah thank you so much Ismailna walaalkay aad baan kugu mahad celinaya thank you support waaya hadda qof ku dhahayo waliga give up green ma give up green insha Allah billah karim waa wadaya وانا تراي غرينايا انت تبرتيا ها وصح هدي حد انه وان كبلاابو رير هبل وسان واي ولا soo yaacaya ma ilaa man ku dhartay waxa dhageysanaysa 900 iyo 1000 qof iyo maxay ta dhowr 1000 qof hadaan marka raba inaan dhowr 1000 qof dhageysato waa inaan umada iyo awooyaasha dhintay iyo dadka soo kiciya anaas hurdada ka soo kaca hadii kale
haddii kale waxa wax dhegaysanaya waa yar yihiin inta wanaagsan oo idinkoo kaleeta oo wanaaga jecel ayaa dhegaysanaysa aniguna intaan u baahanayba waa inta aan wanaaga raba inaan ka wada hadalno aan raba inay wax weydiiyaan anna aan wax weydiiyo aan wax wada gudbino waa idinkoo kale waa intiina ku jirtaa hadda right now ها حديث عمل إنا دتك الردي سوق عسيد واي هذا سوق عن وحكى له وحكى مجرام واي وحا واي وككع يا مركا إن شاء الله بالملة كريم إلهي أمد الصوماليات ملك استو أي جوجان هسوا هديو إلهي أمد الصوماليات ملك استو أي جوجان حقها تصو إلهي سبحانه وتعالى نروح نقبري أمد الصوماليات إنه بجود برعاد الصوماليو إنه إلهي سبحانه وتعالى نبض عن نماني إنه نحدق أيان إلهي كبريايا وحام إلهي كبريايا سبحانه وتعالى صومالي ماشى قبيل كالغو سحري إن صومالي لماذا الغو سحرو صومالي ماشى قبيل الغو سحري صومالي لماذا الغو سحرو أيان إلهي كبريايا because ودن كودا سيف جرينيان دad كودا سيف جرينيان نمعدا إلهي سيي سيف جرينيان إلهي نوا كشكرنيان مركا إلهي وحان كبريايا سحرك أو قبطي قبيالدا يينا أيغو سلميان يينا أيغو دحان أنو إذا ما أركي كرنو أو محيتي ريبل ما أركي كرنو أو أنو محيتي مبني waxaas intay ku mashquul lahayn ilaahay waxaan ka baryaa inay ku mashquulaan oo lagu sixiro inay Soomaali yihiin wiil walaalkay message dheer soo qoray iyo gabar soo yaray ka yaraa balsu Cabdifataax in badan aan ku isticmaalay ereyga midnimo inkastoo dadkayga Soomaali markii ay arkaan qofka وارنتا والله وح خيالي ومليان لكن خيالي ماها من نما هدات كهذا شيء وح في عم بعد كهذا شيء because من نما ووحى أمد الصوماليات أنفع دونا وأنا وح وناجا وأنا وح كليو أن ما أنت حلكوا هلي كرنو ووح كليو أمد الصوماليات ملكستو أي جوجان حلكوا هلي كران كنا قصبين إنك كهالان because last 28 years the starter كنا نقول عاي wixii nagu dhacay diblaatadii nagu dhacday haddaan midnimo haysano hadday Soomaali isjeceshahay hadday ciidooda jeceshahay ma dhacdeen hore uma dhacdeen wixii dhacay dadku koow waa inay ciidooda jecel yihiin waa inay yihiin wadaniyiin waa inay yihiin dad midaysan marka cadow kasta iyo dhibaato kasta oo soo fool saarta ma baabi'in karto laakiin dadku markayna midaysneen wax kasta baabi'in kara Unity is the main key. You're right. Unity is the main bear. Wallahi, bear maaha. That's the main key. Unity. Somalia unity ga halgu dadaalo oo maxay tahay midnimada halgu dadaalo. Waxaan ka hadlayaa waa midnimo waa unity. Midnimada halgu dadaalo. Walaalayaal midnimada halgu dadaalo. Qof kasta oo state-kaaga xataa miday. State-ka adigu aad joogtid miday. Si midnimada guud ahaan hadhow loo helo. Qof kasta oo Soomaaliyada oo midnimada ka hadal. Intaan aan hadlinay halla aydiyada yaroo ku jirta ama maskaxda yaroo ku jirta ama waqtiga yaroo aad heli kartid inaad walaalaha wax ugu gudbiso ha ka baqaylin gudbi sheeg wax wanaag inta wanaagsan waxba laga qaadanaya wax badan oo aniga maxay tahay aan ku hadlo carayga keento ciiliga keeno aan rabay aan hadlo oo dad badan intay message soo direen ay leeyihiin qeyr Allah ku sii thank you baa jira marka ma ahan dadkeena inay xun yihiin ma ahan bulshadeena inayna wanaag rabin laakiin bulshadeena dadka wanaag sheegi lahaa baa yar marka kulligiin waxaan dhihi lahaa ka wada hadla aydiyada wanaagsan gudbiya maxay tahay taraagreeya inaga dhan aan dadkeena mideyno meel kasta oo aan joogno iyo meel kasta aan ku noolnahay noloshaada ilmahaaga adigu hadda ilmo leedahay qofkii ilmo leh intii aan guursanin iska daa laakiin intiina aan ilmaha laho kale ilmahaaga inay waxaad rabtaa ay noqdaan walaalo waxaad rabtaa inay noqdaan kuwo isku xiran waligood waxaad rabtaa inay noqdaan kuwo midaysan waxaad rabtaa kuwo dadka maxay heetee isaga xiran inay noqdaan ma fahanti dadkaaga Soomaaliyeedna waa sidoo kale sida u jeceshahay ubadkaaga iyo walaalaha iyo familkaaga inay united u ahaadaan waa inay u jeclaato Soomaali Maxamedna inay united u ahaato because Soomaaliya oo dhan haday united noqoto wax naga halaabaya ma jiraan wax naga dhumaayna ma jiraan waxaanan gaari kar doonaa guul aan maxay tahay aan hore last 28 years aan u gaarin haday ummadda Soomaaliyeed ay united noqdaan madaxweyne kasta iyo maxay tahay iyo mid kasta oo marka koro ama mid kasta oo madaxweyne noqda waxa ka ina oo ka wanaagsan Soomaali horta marka ugu horeysa ayagu inay united yihiin Soomaali inay yihiin dad wanaaga jecel Soomaali inay yihiin dad wadankooda jecel Soomaali inay yihiin dad ciidi awowgood uga soo dhintay jecel war ciidi awowga kaaga soo dhintay wiilka Boosaaso ka imaaday ama gabadha ka imaatay Baydhabo ama wiilka ka imaaday maxay tahay Jubbaland ciida awowga kaaga soo dhintay awowayaasha u soo dagaalameen on Jubbaland ma ahayn waa gees ilaa iyo maxay tahay Djibouti
ilaa iyo geeska kaleeto ilaa iyo maxay tahay killing meesha degaan killinka shanaad ilaa iyo maxay tahay agagaarka Kenya. So all that baad leedahay marka hankaagu meel yar yuuna gaarinay hankaagu ha dhaafo oo waxaad ogaataa inaad leedahay dhulka ballaaran in ilaahay ku siiyo dhulka ballaaran in awowga ku siiyay oo kuugu soo dagaalamay dhul intaa ka ballaaran dhulkaagu ma ahan only hal xaafo iyo maxay tahay howlwadaag dhulkaagu waa ka geeska Kenya ka geeska ilaa iyo Djibouti ilaa iyo maxay tahay qarka maxay tahay Ethiopia intaba awogaba kuugu soo dagaalamay adaana iska leh so shanta Soomaaliya waa shanta Soomaaliya meel kasta ha kala joogaan waa shanta Soomaaliya waan isu soo noqon doonaan at the end insha Allah bilmillahi kareem qofkii ilaahay ku simay laakiin at the end insha Allah bilmillahi kareem way isku soo noqonayaan marka waxaan ilaa Soomaali Maxameday iyo dadkeeno hankiinu ha dhaafo reer hebel iyo xaafad hankiinu ha gaaro inaad leedihiin dhulka gees Kenya dhulka gees Ethiopia dhulka gees ilaa iyo Djibouti oo walaalihiin oo dadkiini ah hankiinu taa gaara idin leeyahay insha Allah bilmillahi kareem aad baan idin salaamaya dhamaantiin walaalahay ilmaadiraday saaxiibaday asxaabtayda Soomaali Maxamed meel kasto aad joogtaan oo nala ku buufiyay sidoo suntii kaneecada meel walba sidoo sunta kaneecada nala ku buufiyay ma arkaysid Soomaali intay soo qaxday hal meel kuma qaxin Bakiin waa joogaan China waa fadhiyaan meel kasta adduunkii dhan aan nala ku kala daadiyay waxay ku cadeynaysaa taa haddaan maskax leenahay oo dad jiranahay in la rabo dhul cidla ah in la qaato waa zero dhul ah oo aan qofna ku jirin inta joogtana waxa la rabaa mid maxay tahay beerka laga baxo mid kaliya laga baxo mid siyaasad lagu dilo mid la qarxiyo inaasaa ku dhamaano Soomaaliya hurdada ka kacaan leeyahay insha Allah bilmillahi kareem aad ayaan idin salaamaya walaashin midnimo waaye waxaan kaga tagayaa insha Allah bilmillahi kareem inaan is arag dambe oo xiiso leh iyo nagas program oo midnimo aad baan dhamaantiin idin jecelahay aad baan dhamaantiin idin salaamaya wanaaga aan ka wada talino wanaaga aan wada gudbino aniga qofkii maxay tahay hore ii yaqaanina waaba ii yaqaana qofkii aan hore ii aqoonina reasonka halkaan u soo fadhiistay waxay tahay Soomaali jecel waxay tahay in aan ummadda Soomaaliyeed aan maxay tahay dhiirigeliyo waxay tahay in aan dhalinyarada Soomaaliyeed badaha isku guraysa aan u sheego inta aan u sheegi karo because wiilkaygiyo bad aadayo bad isku tuuraay ama gabadheedo bad aadayso bad isku tuurayso kaleeto hooyooyinku waa ila qabaan waa oghay oo hooyo kasta way dhibsanaysaa hooyo Soomaaliyeed baan hayo ifri Soomaali oo kale ana dhalay walaalkay waa ila dhashay waa kulli meel walba ayaan wax isaganahay dadkaygii balaadkaygii waa my blood people weeyaan marka waxa iga hadlisiinayo waa wanaag aan jeclahay wax oo aan wanaag ahayn toolal kuma jiraan haddaan khaldamay Allah subhanahu wa ta'ala hay cafiyo idinkana waxaan ka codsanayaa insha Allah bilmillahi kim wixii khalad ah cafis kulligiina intiina aan xiriirnana waan xiriirnaa aniga hadda 15000 people oo walaalahay camal ha jiro oo meeshaan iska baranay oo eelkayga oo habarro oo eedo oo hayo kulli aan isla dhalanay intiina wanaaga jecel iyo Soomaali Maxamedna waxaan leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala kulligan qeyrka ha ina waafajiyo kulligan qeyrka ha inagu duwo kulligan ha inaga dhigo kuwa wadaniyiin ah oo xaqa isu tilmaamo wadankooda iyo dadkooda iyo dalkooda koodina aan ilaabin intaasaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka baryayaa inta kaleeto oo naxayto xoogaa waxa yarka ana Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha noo soo hagaajiyo ha noo soo hadeeyo laakiin dadkeena la xaraaya hala joojiyo ilmaheena la xaraaya hala joojiyo hana laga hadlo hana laga kaco walaalkeen Cabdi Maaligna hala soo daayo Free Cabdi Maalig baan leenahay mana ka seexanayno mana ka aamusayno mana ka joogsanayno ilaa Cabdi Maalig la soo daayo qof kaskii aniga igu nici lahaa oo dagaalanka Cabdi Maaligowna khayr Allah ku sii hortaa hor Allah kii maxay tahay sideedoo kale dareemayo qof abwaana ama fanaana inaan la xirinina alxamdulillah markaan u dagaalamayay oo u qaylinayay ninka la yiraahdo gamaadii dad badan baan xataa dareensanayn hadda laakiin dad badan ma markay daawan maxaa adiga ka galay aniga inta qof la xiraayo oo khalad lagu xiraayo oo meeshu rabaha lagu xiro baydhabaha lagu xiro balweynaha lagu xiro xamarha lagu xiro boosaasaha lagu xiro kulli waan u dagaalamaya Soomaali qof Soomaali oo khalad lagu xiro oo waliba asagoo kale taana maba seexanayno hurdada waa ka tageynaa assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatu dhammaantiin walaalayaal waxaan idinkaga tagayaa insha Allah bilmillahi kareem ilaahay khayr meel kasto aad joogtaan ha in siiyo hana ku xafido wadankeena iyo dadkeena midnimada aan uga dadaalno dhammaantiin waan salaamayaa waxaan idin leeyahay waa midnimo iyo mar dambe oo insha Allah bilmillahi kareem xiisa leh inaan isugu soo noqono iyo program waxaan ilaahay ka rajaynayaa nagas program aan soo fadhiisano
in uu noqdo ninka la yiraahdo codoon oo la soo daayay inaan ka wada hadalno codoon oo la soo daayay farxadda aan isla qaybsano taasaan ilaahay ka rajeynaya waxaan ilaahay ka baryayaa next program aan isugu nimaadno farxadda inaan wadaagno inteeni codoon team ahayd codoon team waa is wada naqaanaa waan wada ognahay waxaa ka mid ah walaalkaygaas hadda beesh ku jira magaciisa Soomaali Cabdillaan dhammaantiin إن شاء الله بالله الكريم وحن ليه وحن كنت يا خير يا برواقه iyo in ilaahay subhanahu wa ta'ala inaga dhigo kuwo isku duuban oo isku maxaytay xiran oo midnimada dadkoodii iyo dalkoodii iyo walaalahood Cismaanland waa wuxuu ku jira Cismaanland Codoon team soo Codoon team meel kasto ay joogtaan waa in salaamaya ilaahay kor ha idin ka yeelo ilaahay subhanahu wa ta'ala ha idin gargaaro maskaxdiina iyo aqligiina iyo waxa aan ku qacanay iyo waxa aan sameynayno ummad Soomaaliyeed oo dhan bay wax badan ka bedeshay wayna bedeli doontaa mana harsanayno naga staamna ilaahay waxa ka rajeenayaa ninka la yiraahdo waxa kamid ah walaalkay wadani dhab aha kamid ah asaguna maxay tahay teamka Codoon waa badan yahay adduunka dhan aan daasanahay ilaa Australia ilaa ma aamusno kulligiin waan salaamaya inta Codoon u halgantay inta u dagaalanta oo inta maxay tahay wanaaga jecel inta ka soo horjeeda xaq darrada iyo inta ka soo horjeeda in qof qiimo leh Soomaaliyeed meel qaldan dhul aan la ka dhigo kulligiin waan salaamaya waxaan idinkaga tagayaa insha Allah khayr iyo barwaaqo iyo isku qodambo oo xiiso leh insha Allah naga staam aan soo noqono waxaan rajeynayaa inaan ka wada hadalno farxadda walaalkeen Cabdi Maalig oo la soo daayay marka farxadda ayaan ku soo wada gali doonaa aan isku la hadli doonaa aan isla qaybsan doonaa walaalaheena waxaan ka baryaynaa insha Allah bilmillahi kariim ilaahayna ka rajeynaynaa inay walaalkeen iska sii daayaan 2 bilood qof maskiin oo dad masaakiin caawin jiro oo waxba geysanin oo wanaag waxaan ahayn dalkiisa iyo dadkiisa u geysan oo la xiray waa fawaaxisho marka insha Allah sii daaya ayaan leenahay Codoon walaalkeen sii daaya waan idin duceynayna waan jecelnahay laakiin walaalkeen sii daaya intaasaan idin leenahay insha Allah bilmillahi kariim Soomaaliyeey unity waa number 1 safe maxay tahay peace na waa number 1 ku dadaala wixii horena ka baxa reer hebel iyo reer qabalka ka baxa wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh dhamaantiin walaalayaal aad iyo aad baan idin salaamiya idin jecelahay waa midnimo